Sheekh Cabdiqani Xoosh Barre iimaanka masjidka Abu Bakar ee magaalada Maynis iyo Cabdalle Colhaye oo kamida guddida iyo sidoo kale aasaasayasha masjidka Abu Bakar ee magaalada Maynis ee dalka Jarmalka oo warfidiyaanka kula hadlay magaalada Maynis ayaa ka waramay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray masjidka Abu Bakar iyagoona sheegay inuu dhawaan iman doono dalka Jarmalka. Sheekh Xuseen Cali Jabuuti oo kamida culimada waaweyn ee Soomaalida waxaana sheegeen in muxaadirooyin qiimo badan uu ku qaban doono masjidka Abu Bakar ee magaalada Maynis isla markaana shacabka Soomaaliyeed ee qeyrka jecel ugu baaqeen in ay ka faa'iideystaan. goobtan maanta aan ku sugannahay walaaluhu TV nagu soo booqdeen waa masjid Abu Bakar Maynis. masaajidka sida runta ah waxa la aasaasay 2018 iminka wuxuu furan yahay muddo lagu qiyaasi karo ilaa 4 sano. masaajidkan dhalay baa jiro oo isaguna Wiesbaden ku yaala magaalo Makarnas iyaduna labada magaalada ku mataana ah. isagana Abu Bakar baa la yiraahdaa 3 sano ayuu qiyaastii ka horeeyay isagana 2015 baa la aasaasay. alxamdulillah rabbil alamin labada masaajid hawlo aad iyo aad u fara badan bay qabtaan. masaajidadana sida runta anagu waxaan ku tilmaamnaa masaajidada wadankii ku yaala kala mid ma aha oo waxaan rahnaa waa safaaradaheeni weeye waayo qofka dhintayna waa lagu aasaa ka dhibaataysan baa lagu caawiyaa ka ayaga martida ah ee soo dhaca ma garanaysaa habeenkaas uu u hoydaa. waxa weeye hawlo fara badan oo hadda aan la soo koobi karin bay labada masaajid ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Raymangibid ay u qabtaan. tirada qiyaasiyan waa waxa weeye guddidii afraad ama shanaad taqriiban ayaa isbedeshay si nabad leh oo walaaltinimo leh oo mid walba uu leeyahay ma garanaysaa hawshii anigu intii la igu talagalay waan qabtay hawsheedu way dhamaatay hawshan ha laga qabto culeyskeeda iyo ma garanaysaa ayaan isugu wareejinaa. iminka anaga ah guddidii shanaad ee labada masaajid maamulaya dhawaan insha Allah waqtigii uu dhamaaday waan la bedeli doonaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka raali noqdo. waxyaabaha de lagu yaqaan masaajidada waxa dheer oo kala ma garanaysaa masaajidka uu qabtaa in meelaha ma garanaysaa dibadda wadankeeni culimo looga yeero. Sheekh Mustafa noo yimid, Sheekh Cabdirashiid Saali Sufu noo yimid, waxa noo yimid culimo kale oo ma garanaysaa fara badan. imikana insha Allah 27 bisha waxaan ku leenahay kulan Allahumma salli ala Muhammad magaalada Maynis la yiraahdo 27 waxaan imanaya Sheekh Xuseen Jabuuti iyo jamaacadan uu wata ayaa imanaya magaaladana 3 cisho ay joogayaan hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo. waxaan rajaynaynaa insha Allah dhammaan ummadda ku dhaqan Jarmalkana inay ka faa'iideysan doonaan. runtii masaajidkan markii aanu asaasaynay magaaladan aanu ka asaasaynay markii hore fikir bay taagneed waxaan lahayn masaajid magaaladan ma laga asaasi karaa labadayadan midna mudegayn marka magaalada dadka oo dhan wayna la yaabanaayeen oo waxayna lahaayeen magaalo aanay deganayn ay rabaan ragana inay masaajid ka asaasaan. hase ahaatee markii fikirkii aanu socodsiinay ee Jarmal oo dhan aanu lacagtiisii ka soo ururinay ilaa min Halisaala ilaa iyo xagana Cologne aanu ka gaadhnay xagga Lutfi Shafin aanu ka gaadhnay xagga Kaiserslautern ilaa Bremen aanu soconay. alxamdulillah waxay noqotay dhaqaale ku filan oo maartay masaajidka kafeeya 4 kun ugu dambeysay ee roogaga lagu dalbi lahaa rag ba iyaguna caraba oo muxsiniina ba iyaguna naga kor qaaday oo sidii buu masaajidkaas ku asaasmay. waxa kale oo la yaab maartay iyaduna ah oo mudan in la sheego jahliyadan waxaanu gelinay fikir maartay fikradii dawladaha la gelin jiray oo kala gelinay. waxaanu ka dhignay ummad Soomaalida wada aragtay meel walba oo ay joogto Soomaalidu isma ogola badi ahaan ama qadiyad hay isku hayaan ama qabyaalad hay isku hayaan ama farsamooyin kala hay isku hayaan. waxaanu is ogoleysinay ummad ka kala timid shanta Soomaaliyeed oo hal kaad oo masaajidku leeyahay lacag ku soo wada dira. taasa iyaduna wax weyn oo ah aan oran karo waa tiir dhaxaadka na dhaxalsiisay in ay jahliyadani laba gobol oo qaybna haysan ay tahay qaybna ay Rhineland Valley tahay in ay hal kaad ay wax ku soo wada diraan. taasina waxay u baahan tahay juhdi iyo dadaal iyo maartay ku qancin fara badan. waa yalla Mudakar MMTV Jarmalka.